Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaqiijiyay inaysan jirin wax wada hadal ah oo u dhexeeya isaga iyo maamulka sare ee kooxda Manchester si uu u noqdo bedelka buuxa ee Jose Mourinho isla markaana waqti dheer uu ku sii sugnaado garoonka qalaacada weyn ee Old Trafford. Red Devils ayaa ninka reer Norway waxay markan rajeynaysay inay qandaraaska u kordhiso isla markaana uu ka mid noqdo tababarayaasha naadiga sida joogtada ah u maamulo. laakiin ninkii hore ee Manchester haddana ah tababaraha ku meel gaarka ee naadiga Red Devils wuxuu rajeynayaa qudhiisay in wada hadal hadda kadib ay furmaan, laakiin wuxuu meesha ka saaray in hadda aysan jirin wax wada hadal ah oo u dhexeeya isaga iyo maamulka sare ee naadiga Red Devils. 45 jirkan ayaa shir jaraa'id uu ka soo muuqday wuxuu kaga hadlay dhowr arrimood oo ku saabsan kooxda Manchester, waxaana uu yiri marka hadalada mustaqbalkayga wali waa xilli hore marka aan halkan imid mas'uuliyiinta kooxda ayaa waxay si cad oo daacad ah igu sheegeen inay raadinayaan macalinka xiga ee maamuli doono kooxda Manchester mar walba ee aan sii joogo booskayga. wax badan ayaan ku raaxaysanayaa maalinta ay noqoto inay ku dhawaaqaan magac tababaraha xiga haddii aan anigu noqdo ama shakhsi kale. waxaan u rajeynayaa nasiib wacan ayuu sheegay ninka qabow ee Manchester Ole Gunnar Solskjaer. si walba ay haataba leeliyaha haatan maamula naadiga Manchester ayaa waxaa loola dhacay qaab ciyaareedkiisa wacanta iyo markii shaqada uu ka bedelay kaligii taliyihii hore ee Portugal Jose Mourinho, kaas oo ugu dambeyn naadiga iska celisay isla markaana ay ku bedeshay laacibkii hore ee Manchester haddana ah hogaamiyaha naadigaas ee Ole Gunnar Solskjaer.